بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وحالي رادا سعاد عبد الله وحنا خبير ku takhasustay sida looga qayb geliyo waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada ah. maanta oo aan ka soo qayb galay ama maalmahan oo dhan shirkii socday oo ahaa waxbarashada qaranka sidii loo eegi lahaa ama dib eegis loogu eegi lahaa waxbarashada maanta oo ahayd muhiimadda la saarayay sidee loo heli karaa waxbarasho loo dhanyahay. marka aan saas leenahay waxay tahay qof kasta arday kasta oo Soomaaliyeed in uu helo waxbarasho asaga anfacaysa awoodna u siinayso inuu dib ugu celiyo bulshada. saadaradeed waxyaabahan maanta falanqeynay waxaa ka mid ahaa inaan eegno maaragtay waxbarashada dadkaas sidee noqon kartaa. marka waxaa la isla eegay in la fiiriyo maxay tahay sidee looga qayb gelin karaa. waxaa looga qayb galaya koow in goobaha waxbarashada loo diyaariyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen, in loo diyaariyo macallimiintii sidii ardaydaas wax u bari lahaayeen ugana qayb gelin lahaayeen fasalka oo in loo takoori lahayn loo geen kari lahayn iskuul ka takooran iskuulada caadiga ah. in ma aragtay wacyigelin loogu sameeyo bulshada because waxaan ognahay qof kasta oo Ilaahay abuuray inuu wax baran karo waxbarashaduna ay tahay wax Ilaahay dadka uu ku abuuray. ayada quraankana waxay ahayd aqri macnaheedu waxay tahay in qof kasta oo dhashay uu wax akhrin karo waxna baran karo laakiin in fursad la siiyo u baahan tahay. midda saddexaad oo ah dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka u taalo waxbarashada in dib u eegis loogu sameeyo si يعني أجندة قرن ay u noqoto in waxbarashada loo dhan yahay ardayda dhan laga waxeeyo. anigoo hadda waxaan ahay asaasaha ama hormuudka macadka sisan macadkaas oo loogu talagalay in uu qiimeeyo ardayda baahidooda uu ogaado kadibna uu ka qayb geliyo waxbarashada ku habboon dugsiyada magaalada Muqdisho iyo gaarada magaalada wadanka Soomaaliya. waxaa kaloo aan u sameynaa ardayda inay helaan agab ay wax ku bartaan maadaama ay baahi gaar ah qabaan ama ay naafo yihiin si ay uga qayb qaataan. marka waxa ugu daran oo hadda maantana la sheego waxay tahay ma jirto xog ku saabsan dadka baahiyaha gaarka qaba ama naafada oo wadanka taasna waxay muhiim u tahay si loo geliyo maalgelin loo sameeyo ama ka qaybgelin loo sameeyo waa in helaa xogtaas lana diyaariyaa xogtaas sida uga qayb qaadan lahaayeen. kusoo celi baayo aad baan u filayaa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay in masuulka ugu sareeyay waxbarashada wasiir Faarax Sheekh Cabdiqaadir uu fadhiyay runtii uu nood qaadanayay. taas marka waxay ku tusinaysaa inuu masuuliyad iska saari doono in uu arday kasta oo Soomaaliyeed uusan ka reebin waxbarashada. gaar ahaan kuwa baahiyaha qaarka qaba waxaan ognahay in 4 milyan oo arday oo Soomaaliyeed waxbarashada ka maqan yihiin laakiin waxaan ognahay boqolkiiba 99 ardayda naafada ama baahiyaha gaarka inay waxbarashada ka maqan yihiin. gabagabada waxaan shirkan ka filin karnaa horta Soomaali mid ah oo ka wada tashatay sideen rabnaa inay waxbarashada wadanka Soomaaliya ay noqon kartaa. waxaa ka soo bixi doona in qorshe howleed ajandaysan oo qaramaysan inay ka soo bixi doonto in 4 milyan oo ardayda Soomaaliyeed ay ku jiraan kuwa baahiyaha gaarka qaba in loo sameeyo qorshe howleed 4 sano xukuumadda dan qaran ay jirto in loo hagaajiyo sidii looga qayb gelin lahaa waxbarashada.